subaxnimadii hore markii ahayd 9 barka xarun weyn oo ku taala Bangor waxaa soo istaagay saf gaadiid ah kuwaas oo ah gaariga raaxada markii albaabada baabuurta iska soo fureen dadka ka soo degayay dharkooda waxa uu ahaa dhar heer sare ah waxayna xirnaayeen suud iyo kaba si fiican u dhalaalaya wajiyadooda waxaa ka muuqatay rabitaan xoog badan oo u hayaan mustaqbalka dadkaasi dhexdeeda waxaa si degan u socday wiil dhalinyaro ah oo ku sii jeeday albaabka weyn ee xafiiska garabkiisana waxaa ka laalaaday boosto duuga dharkiisana waxay ahaayeen dhar duuga kabihiisana waa ayba ka sii darnaayeen waxa uuna kabihiisu ay u ekaayeen kuwa sanado fara badan uu ku socday magaciisana ninkaani waxaa lahaa Raahul qofna ma uusan u fiirsanaynin ninkaani waayo qof walba indhihiisa waxa ay ku sii jeedeen shaqadiisa laakiin dhab ahaantii Raahul ma ahayn qof caadi ah waxa uu ahaa milkiilaha mustaqbalka ee shirkadani waxa uuna dalka dibadiisa oo aga soo laabtay kadib markii uu waxbarasho soo dhameystay oo uu ku soo dhameystay dibadda isla markaana uu rabo in shirkadani uu madax ka noqdo hase yeeshee waxa uu go'aansaday in aqoonsigiisa uu qariyo si uu ogaado dadka shirkadani ka shaqeeya sida ay u dhaqmaan iyo in ay ku tuntaan dadka ka hooseeya iyo in ay soo dhaweeyaan wuxuuna maskaxdiisa iska lahaa sidee kooxda shirkadani ka shaqeysa dadka ula macaamisha yaa daacada yaa saqaalinloo ah yaa kibir darteeda bini'aadamnimada xitaa iloobay ujeeddadaas ayuuna shirkad u soo galay isagoo iska dhigaya nadiifiye gacantiisana waxa uu ku watay iskoobo si uu goobta u nadiifiyo markii uu ka soo gudbayna albaabka waxa uu maqlay dhawaaqa talaabooyin degdeg ah haweeney kaba Highlands gashan ayaa si dhaqso leh u soo socotay magaceedana waxaa lahaa Biriti waxay ahayd assistant manager-ka shirkadani waxay raxan ku ahayd dabeecad adag iyo in shaqaalaha ka hooseeya uu la dhaqanto si kibir ka muuqda Biriti markii ay aragtay Raahul indhaheedu way yaxsaadeen xanaaq darteeda waxa ay fiirsay madaxa ilaa lugihiisa kadibna iyadoo cod degan ku hadlaysa bay tiri halkaan maxaad u taagan tahay adiga soomatii ninka nadiifiya ahaa tani ma ahan meel aad nadiifinaysid ee dhinacaasi nadiifi Raahul madaxiisa ay hoos u dhigay waxa uu dareemay xanuun yar oo wadnaha ah laakiin wuu isdajinayaa si aamusnaan ka muuqata waxa uu markaas tagay gees si uu nadiifiyo inkastoo ahaa mid dhib badan haddana waxa uu ogaa in muhiimadda ay tahay inuu dul qaato sababtoo ah tani ma aysan ahayn ciyaar waxay ahayd imtixaan weyn oo isaga nafsidiisa ka qaadayo si uu soo saaro wejiga dhabta ee shaqaalaha goobta ka shaqeeya Biritina markii ka sii tagays waxay ku tiri halkaan ku ekow ha noqon nadiifiyaha hore ee caajiska badnaa oo kale haddii kalena ma sii joogi doontid hadalkaani markii uu maqlay qaar ka mid ah shaqaalaha agtiisa ay joogeen waa ay qosleen kuwo kalena si dhuumasho leh ayay u qosleen iyagoo wejiga ku qarinaya faylasha gacantooda ku jiray qofna ma uusan u malaynayn in ninkan nadiifiyaha iska dhigaya biri uu noqon doono midka go'aamin doona mustaqbalkooda Raahul waxa uu iskoobaha ku nadiifinaya jidadka dhulka isagoo uu sameeyay xariiqin khafiif ah waxa uu qalbigiisa u sheegay in wax walba uu arko uu dul qaato si dadka xuxun ee shirkadani ka shaqeeya dadka hortooda hadhowdi uu ugu soo saaro markii waqti qadada la gaaray xafiiska sida caadigeed waxa ka dhashay buuq iyo firfircooni shaqaalaha qaar